وزير ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta isgaarsiinta ee ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee Soomaaliland. xaruntan oo maanta laga dhagax dhigay taliska ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa noqon doonta mid lagu xidho qalab casri ah oo guud ahaan lagala socdo xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa amniga ee badda Soomaaliland. sidoo kale xaruntan ayaa lagu xidhi doonaa qalab casri ah oo lagala xidhiidho dekedaha wadamada aynu jaarka nahay. ugu horeyn taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee gobolka Saaxil Umar Adil Qalinle iyo sidoo kale abaanduulaha ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay. Ilaahay rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle isku keenay maanta xafladan aynu ku dhagax dhigayno isgaarsiintii ciidanka ama qaybtii operationka laga soconayay maartay dhaqdhaqaaqa badda iyo hawlgalka ciidanka runtii muhiimad weyn bay noo leedahay inaanu helo operation caynka u shaqeynaya ama caynka u qalabaysan oo maartay saacadii u dambeysay tiknoolajiyada caalamka laga isticmaalaya ay ku rakiban tahay aad iyo aad baanu muddo badan u naawilayna inaanu helo ama heerka aanu gaadhno. maanta waxaan isku dhagax dhigay xarunta isgaarsiinta casriga ah ee ciidanka ilaalada xeebaha loo sameeyay waxaanan aad ugu mahad celinahay EU Cup oo meeshan fadhida oo wax badan la soo qabatay imikana la qabanaysa magaranaysa waxyaabaha cusub. xaruntan muddo soo socotay waa tower dheer oo aqooneed wax badan laga faa'iidi doono. runtii ka gorgor ahaan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu qayb ka noqono mashruucan qiimaha badan ee ay dadaalkiisa inta badan soo wadeen hadday tahay EU Cup iyo hadday tahay institutionskan hay'adaha hay'adaha ku shaqo leh hadday tahay ciidamada badda hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddii kale dadaal ka qaadatayba annagana waxa farxad noo ah inaanu noqono kumbaniga dhisi doona mashruucan ee fulintiisa qaadan doona. duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidan iyo sidoo kale barasaabka gobolka Saaxil Cali Cabdillaahi Cali Case ayaa dhankooda soo dhaweeyay xaruntan cusub ee maanta lagu soo kordhiyay taliska ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee Soomaaliland. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynaynaa EU Cup oo inoo dhisaysa anoo qabanaysa mashruucan ku yaala ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu shaqada halkaa laynooga qabanaya ahaato shaqadii qarankan iyo dalkaniba oo ay lahaa waa qalab dhan oo casri ah oo runtii wixii hore inuu hayn jirnay oo ka casriyeysan kana tayo badan. inaga mas'uuliyaddeena saaran ayaa ah inaynu waxaa laynoo dhiibo inaynu ilaashano marka koowaad oo daryeelano oo garanno inagu leenahay oo lixjaladeeni tahay. ugu dambeyntii anigu waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad EU Cup oo runtii ciidanka ilaalada xeebaha qaranka xagga capacity buildingka gacan wanaagsan ka siisa tababarada xagga maamulka iyo hagaajinta. insha Allah waynu gaari doonaa iyagoo si ciidana oo ciidana aynu wax soo dhaafsano. farxad weyn bay noo tahay gobol ahaan maanta halkan in laga hirgelinayo xarunta isgaarsiinta ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland oo halkan maanta laga dhagax dhigi doono ay fulinayso hay'adda EU Cup oo midowga Yurub runtii ay soo halgelinayaan. marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa sidaa uu sheegay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Mr. Umar. xaruntan baahi weyn baa loo qabay maadaama ay Soomaaliland leedahay xeeb aad u dheer oo runtii u baahan ilaalinteeda iyo ka warqabkeeda. waxaan ilaahay idamkii ka rajaynaynaa in lagaga kaaftoomi doono warwar badan oo laga qabay ilaalinta xeebta badda dheer ee aynu leenahay. marka waxaan leenahay aad baan idinku mahadnaqaynaa waana u baahnayn waqti loo baahnaa bay runtii timid waan idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad mahadsantihiin. wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdillaahi Xuseen Maxamed iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Marwar Rooda oo iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay ayaa sheegay
in xaruntani wax weyn ka tari doonto ciidanka ilaalada xeebaha isla markaana mashruucani in badan laga soo shaqeynayay sidii uu hirgeli lahaa. runtii waxay tahay farxad in maanta kala soo qayb galo mashruucan maanta la daafurayo oo ah mashruuca ugu ballaaran laga dhisay taawar ahaan geeygeena ka soo jeedno in badan baa la sugay si la sheegay laakiin waxaan is leeyahay waqtigiisii ku soo beegmay maadaama ay tahay ku saabsan tahay ilaalada badda taawarkii laga ilaalin lahaa maanta aynu ognahay badeena iyo waxa ku xeeran ba inay ka jiraan dhaqdhaqaaq badan iyo kullayba dagaal meelaha qaarkood ka socdo oo waxaynu u baahanaa waqtigeeda yimi hay'adda aad baan uga mahadcelinaynaa awoodda ay geliso ciidankeena inay dhisto badda inay xeebaheena ka shaqayso oo ay wixii u baahan tahay ka caawiso inay ciidankeena badda wax ka dhisto bilowga xarun ciidanka ilaalada xeebaha loo dhisayo oo kaantaroolaysa haddii alla ka dhigo isgaadhsiinta iyo raadaarada halkii laga kaantaroolayay ah waa command centerkii isgaadhsiinta iyo raadaarada arrintaas waxay naga caawiyey European Unionka waxaa fulinaya EU Cup dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa ciddii ka soo qayb qaadatay arrintaasi inay fusho oo ay kow ka tahay EU Cup hay'adda EU Cup la yiraahdo oo European oo nagala shaqaysa kobcinta iyo tayeynta ciidamada ilaalada xeebaha. وفيصل هذا اسماعيل تلفزيون كقرن كالسوماليلان بربرة.